يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب. صلى الله وسلم وبارك عليه حديث الترمذي wuxuu yiri waxa ayaan daro ay ku dhacday oo duloobay oo nasiib xumo ay soo wajahday qof ramadaankan qaaliga ah fursadan iyo deeqdan rabbi ilaahay uu soo gaarsiiyay haddana ramadaan uu dushiisa ku dhamaaday isagoo aan loogu dambi dhaafin isagoo aan lagu qorin diiwaanka iyo malafka kumanaanka la xuraynayo diiwaankaas isagoon gelin ramadaan uu dushiisa ku dhamaaday ayaan daraa qofka ku dhacday nabigu sallallahu alayhi wasallam allahumma la taj'alna minhum ilaahay naga madhigo subhanahu wa ta'ala huwa ayaan daradu ay ku dhacday ilaahay naga badbaadiyo bil haqiiqana waa sida nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam waa ayaan daro weyn qof inta jaanis weyn iyo deeq weyn hortiisa la soo dhigay waliba deeqdiina uu ooman yahay deeqli uu haraadsan yahay deeqdaas uu gaajaysan yahay deeqdaas mustaqbalkiisa adduunyo aakhiraba ay ku xiran yihiin haddana dabaalnimo iyo naftiisii iyo hawadiisii shaydaan iska raacay oo deeqdii ka faa'iideysan waayey qofkaas waxa weeye bil xaqiiqa mandiqa caqliga ah waa mandiq caqli ah ayaaba wuxuu keenay inuu yahay qof ayaan daro qofkaas ay ku dhacday liannahu deeqdan ilaahay subxaanahu wa tacaala ramadaan uu ina siiyey waa deeq ka kooban sharaf adduunyo iyo sharaf aakhiraba isugu jirta waa deeq ka kooban horumar adduunyo iyo mid aakhiraba oo hortaada taalla oo lagu leeyahay ka faa'iideyso waa jawhar qaali ah maxaa yeelay ramadaan daqiiqad kasta oo ku dhex jirtaahi waa qaali daqiiqad kasta oo ku soo marta ramadaan haddii aad ku bixiso daqiiqadaha ramadaan meel aan munaasib ahayn aad ku bixiso waad khasaartay bilxaqiiqa adduunyadan wasakhda ah ayaa waxaa la yidhaha qofkii $1 ku bixiya meel aan munaasib u ahayn waa khasaaran dhahnaa soo maha wasakhdan adduunyadeeda dhalaalka ka waran 1 saac ama 1 daqiiqe ramadaan ka mid a qofkii macno darro ay uga baxdo waxaa la dhihi karaa waa qof caqligiisa caadiga xataa uu maqan yahay caqligii diineed iska dhaafee caqligii bashariyadda lagu yaqiinay ee wanaagga lagu garan lahaa ayaa qayb ka maqantay qayb ayaa ka maqan ramadaan walaalayaal waa jawhar qaali ah nabigeena sallallahu alayhi wasallam wa baraka calayhi wuxuu tilmaamay xawaa'ijta iyo danihii la lahaa bishii lagu gudan lahaa bishii danahaaga oo dhan aad ku gudan lahayd dan adduunyada mid aakhiratan inay tahay haddaad badan lahayd midii dantaada aad ku gaari lahayd waa bisha ramadaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wa baraka calayhi xadiiskii ibnu maajah uu sunankiisa ku warinayay wuxuu ku yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam wa baraka calayhi walillaahi عند كل فدر عتقاء ولله عند كل فدر عتقاء إلهي سبحانه وتعالى هبين والبمرك أفرك الله فريسته كمنانو إلهي حرية ونارته وكحرية اللهم اجعلنا منهم إلهي نقدر سبحانه وتعالى وكوا نقمدية عند كل فدر عتقاء من النار هبين والبمرك الله فريه ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kumanaan uu xuraynayo qofkii ku qaday habeenkii ugu horreeyey ramadaan kii labaadna aan gelin liiskaas habeenkii saddexaad ilaa 30kii ama 29kii ramadaan ku qaday liiskaas maxaa la dhihi karaa waa qof ayaan darro u soo hoyatay ayaan darro qof ay u soo hoyatay ilaahayna addoommadiisa ma dulmiyee waxbuu addoonkaa ilaahay ku ogaaday taqsiir iyo gaabin iyo ramadaan oo agtiisaba aan ka qiimaysnay nawaaya qabiixa wa nawaaya shaniica manwiyaad iyo waxyaalo uu xambaarsan yahay oo xun ayaa ilaahay addoonka ku ogaaday addoonka ilaahay liiska uu ka reebay
ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo subxaanahu wa tacaala laakiin waxa liiska lagaaga reebay haddiiba liiskii lagaa reebay oo liiska aad ku qaday waxa lagaaga reebay ayaad qabtaa waxaa lagaaga reebay ayaad liiskaa qabtaa walidaalika ramadaan fursadaha uu iska leeyahay waxaa ka mid ah in ducada mustajaabo ay tahay yaa allahda wax walbood ilaahay weydiisato albaabada samadu inay furan yihiin albaabada samadu inay furan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala bishan ay tahay bisha deeq aan la soo koobi karin uu bixinayo ilaahay waa kariim waa deeqsi waxaa ku jira ramadaan fursadaha ducada lagu aqbalo nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayhi xadiiskii ibnu xibbaan iyo keyrkii ay warinayeen wuxuu ku yidhi ثalaaثaة laa turaddu dacwatuhum saddex ruux ducadooda lama soo celiyo ducadooda waa la aqbalaa saddexdaa waxaa ka mid ahaa aلsaa'im xataa yufdir qofka sooman ilaa uu ka afurayo ducadiisu mustajaabo haddaad muraad lahayd muraadkaagii soo bandhigo oo ilaahay u bandhigo muraadkaagii haddii caafimaad darra ay ku haysay waa bishii aad ilaahay u bandhigi lahayd caafimaad darradaada haddii faqri uu ku hayo saboolnimo waa bishii aad ilaahay u soo bandhigi lahayd jaaniskan aad uga faa'iidaysan lahayd haddii awlaad darro ay ku hayso oo awlaad aad yacni la'dahay waa bishii ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u soo bandhigi lahayd haddii awlaad ilaahay ku siiyey laakiin awlaaddu ay kaa khaldan yihiin oo caasi ay kugu yihiin waa bishii albaabka ilaahay aad hor istaagi lahayd haddii aad maaragtay dembiye fara badan gashay oo kintaallo dunuub aad xambaarsan tahay kintaalladaa bishii ay kaa degi lahaayeen waa bisha oo ilaahu iga dejiyo ilaahu ii dhaaf ilaahu isaamax ilaahu ii cafi bishii aad dhihi lahayd waa bishan haddii jannatulfirdows ilaahay bil aad weydiisan lahayd waa bishii aad heli lahayd tan wixii aad weydo bil kale heli maysida ogaw tan wixii aad weydo bis way maxruumaa tahay shaqi axaadiista nabiga salى اllahu عalayه wasalam waxaa ku soo arooray man xurima khayraha faqad xurima alkhayra kulah qofkii habeenadan ramadaan khayrkeedii ka faa'iidaysan waaya waa qof khayr laawaya buu yihi nabigu salى اllahu عalayه wasalam xadiiskii nasaa-i uu warinayay nabiga salى اllahu عalayه wasalam wuxuu ku yidhi fiihi laylaة khayru min alfi shahri man xurima khayraha faqad xurima alkhayra kulah nabiga salى اllahu عalayه wasalam wuxuu ku tilmaamay ramadaan qofkii ku qada weligiisba waa qada uu yidhi nabigu salى اllahu عalayه wasalam weligiis waa qaday kaas ilaahay nama qadiyo subxaanahu wa tacaala ilaahay ha nagu dherjiyo bisha ramadaan jannatulfirdows iyo caafimaad iyo ilaahay ridihiis iyo deeq adduunya mid aakhiraba ilaahay bishan bishii aan ku dhergi lahayn ilahay ha naga dhigo subxaanahu wa tacaala bishii nasri muslimiintoo dhan ilaahay uu nasri iyo guul iyo farxad u furi lahaa ilaahay ha nooga dhigo khusuusan dadkeenna soomaaliyeed oo aad u dhibaataysan oo dhibaatadu ay nagu dheeraatay bishii dhibaatada aanu ka bixi lahayn bishaan ilaahay ha nooga dhigo bishii farajka iyo farxadda iyo nabadgelyada iyo barwaaqada iyo amniga soomaaliya uu u furmi lahaa bishan ilaahay ha nooga dhigo ilaahay bishii maaragtaahay raxmadda uu nagu soo fiirin lahaa ilaahay bishan ha nooga dhigo waxa nagu dhacaya waa wax gacmaheenna aan ku keensannay ilaahay nama dulmin subxaanahu wa tacaala wax gacmaheenna innagu aanu ku keensannay qof gacanku dhiigla ah iyo qof afku dhiigla ah iyo qof qalbi ku dhiigla ah saddexdaas aanu u qaybsannay haddaan soomaali nahay qofkaan dhiiggii gacanta aan ku daadinin afkuu ku daadiyey qofkii afka aan ka daadinna qalbigu ka taageerayay dhiigga la daadinayay intaasoo sano ilaa man raximahullah dad yaroo ilaahay doortay oo ka badbaaday maahan dad yaroo shakhsiyaadoo ilaahay doortay way jiraan oo ilaahay uu ka badbaadiyey laakiin inteenna badan waxaa weeye waan dabaalannay ilaahana cafiyo allahna asturo bishii farajka aanu ku heli lahayn bishii nasriga aanu ku heli lahayn ilaahay bishaan ha nooga dhigo subxaanahu wa tacaala guulaha ilaahay subxaanahu wa tacaala bishan ilaahay subxaanahu wa tacaala deeqda weyn oo ilaahay uu dhex dhigay waxaa ka mid ah sida nabigeennu inoo sheegay salى اllahu عalayhi wasalam wa fiihi laylaة khayru min alfi shahr habeen waxaa ku jira uu yihi nabigu salى اllahu عalayه wasalam kun bilood ka khayr badan waa habeenka leylatulqadriga ah yaa bixiyo deeqdaas oo kale oon ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala kambeniga haddii shaqaale uu u shaqaynayo kambeniga ma jiraa kambeni yacni hal bil ugu dhufanaya 83 sano yaa qarashkii shaqaaluhu uu qaadan lahaa hal bil shaqaalihii uu qaata kambeni dhahaya ma jira adduunka weligeen ma maqasheen kambeniga weligeen ma maqasheen mise aragteen kambeni dhahaya
83 sano wixii aad qaadan lahaydeen hal bilaan idin siinahay shaqaalihii idinkugu dhufanahay soomkii 83 sano la soomaan lahaa salaadii la tukan lahaa xajkii la xajiin lahaa 83 xaj quraankii 83 sano aad akhrisan lahayd tasbiixdii iyo wardiga aad akhrisan lahayd 83 sano hal habeenuu ilaahay ku bixiyaa habeenada ramadaan ka mid ah waa habeenka la yiraahdo laylatul qadri waa habeenka ilaahay jalla jalaaluhu uu ku yiri wama adraaka ma laylatul qadri laylatul qadri khayrun min 1000 shahrin maxaa ku ogeysiyey maxaad ka taqaanaa laylatul qadri waxa ay tahay su'aalu ilaahay dadka weydiinahay su'aashaasi waxa weeye waa su'aalu tafkhiim waa su'aal ulajeedada ka dambaysa ay tahay weynayn qalbigaaga lagu weynaynayo habeenka su'aalaha nooca ay u dhigan yihiin taas maxaad ka taqaanaa laylatul qadri maxaad ka ogtahay laylatul qadri laylatul qadri waa khayrun min 1000 shahr waa hal habeen oo kun bilood ka khayr badan ayuu yidhi ilaahay jalla jalaaluhu kunka bilood waa 83 sano iyo 4 bilood 83 sano iyo 4 bilood wixii shaqo aad qaban lahayd oo dhan halkaa habeenaa lagu siinaa halkaa habeen ayaa ilaahay kugu deeqaya subxaanahu wa tacaala nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii imaamu axmed uu musnadkiisa ku wariyey wuxuu ku yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ucdiyat ummatii fii ramadaan 5 khisaalin lam tucdahaa ummatun min alumam ummaddayda bisha ramadaan ilaahay wuxuu ugu deeqaa 5 arrimood oo ummad aan loogu deeqay aysan jirin ummadihii hore oo ifkan soo maray innagu waxaan nahay aakhirul umam adduunyada ummaddii ugu dambaysay waa ummadda nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam falaa nebiya bacda moxamed nebiyullaahi moxamed ka bacdi nebi kama dambeeyo walaa ummata bacda ummati moxamed ummatu moxamedna ummadu kama dambayso waa gebagabadii adduunyada ayaanu ku soo beegannay ummad walba ummad kalea ka dambayn jirtay ummadihii qowmu nuux waxaa ka dambeeyey qowmu caad ayaa ka dambeeyey qowmu hamuuda ka dambeeyey qowmu saalixa ka dambeeyey qowmu nebiyullaahi ciisa qowmu nebiyullaahi muusa ummad walba ummado fara badanaa ka dambeey jiray quruun fara badan laakiin nebigeennu wuxuu noqday sala allahu calayhi wasalam nabigii lagu khatimay ambiyada innaguna waxaanu noqonnay ummaddii ummadaha lagu khatimay oo ummad naga dambaynaysaah ma jirto ummatu moxamed ayagaa qiyaamuhu ku dhacaa ummatu moxamed ummatu moxamed ayagaa adduunyada lagu soo duubaa ayagaa qiyaamuhu dushooda uu ku dhacaa marka waxaanu ku soo beegannay qarniyadii gebagabada adduunku u ahaa oo ilaahay adduunyada dhanba uu baabi'inayey layskuna diyaarinayey maxsharkii weynaayey iyo fagaarihii weynaa oo laysku xisaabinayey fii carasaati alqiyaama maxsharkaas uunbaa na sugaya adduunyo dambe ma jirtayo ummado dambe oo naga dambaynaya iyo nebi dambe oo soo baxaya ma jiraan lidaalika nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ummaddayda waxaa la siiyey 5 arrimood oo ummadii ka horreeyey aan loogu deeqin ayaa ummaddayda loogu deeqay uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam arrimahaas nabiga 5ta ah sala allahu calayhi wasalam ee imaam axmed musnadkiisa uu ku wariyey waxaa ka mid ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wa ina allaha yusayinu jannatahu kula yowmin min ayaami ramadaan maalin walba ee maalmaha ramadaanka ka mid ah jannada ilaahay wuxuu u kordhiyaa qurux shalay aysan qabin allahu akbar maalin walba ziina iyo qurux hor allah albaabadii jannadoo la furayo waxaa siyaado u ah maalin walba in la sii qurxinayo jannada maalin walba naciim hor allah ah in loo sii kordhinayo barwaaqo hor allah in loo sii kordhinayo karaamo hor allah naciimka loo sii kordhinayo waxayna ka mid tahay min khasaa'is ramadaan bisha ramadaan isbedelada ilaahay subxaanahu wa tacaala ee karaamada dadka mu'miniinta uu ugu diyaarinayo ayay taasi ka mid tahay marka janno marka la leeyahay janno waxaa laga helaa 4 arrimood oo meel laga helayo caalamkan aysan ku oolin waa jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin walba addoommadiisa saamiimiinta ah ee soomay bisha ramadaan uu u diyaarinayo 4 arrimoodoo waxaa laga heli adduunyada meel caalamka laga helayo aysan jirin waa shabaab la harama bacda dhallinyaronimo aan duqow ka dambaynin adduunyada caalam meel kasta walba oo tagtid maalin walba waxbaa kaa sii dhacaya shalay wiilkii boodayey shalay wiilkii buuraha ka boodayey maanta ulug ku tukubahay
nin walboo tillaabsado waxaa la yidhi taagsiyaa u dambeeya da tillaabta aad kala jiidi jirtay maalinba dhowr sano ka bacdi adoo taagsanayaad arki iska insaanku iska daciifu insaanku waa iska daciif habeen walba meeluu ku sii hoyanahay marka ugu dambaysana waa qabri iyo ciiddaa hoosteeda hala galo dad ducafaanu iska nahay ilaahina cafiyo subxaanahu wa tacaala ilahay cafigiisa nagu karaameeyo ducafaanu iska nahay marka dhallinyaronimo aan gabow ka dambaynin meel laga helayo jannadaa ka jirta jannadaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin walba ilaahay uu u qurxiyaa oo ilaahay u siineeyaa dadka maaragtaay saa'imiinta ah ilaahay daacadiisa ku soo jeeda habeenkii maalintii oo dhanna sooman ayuu ilaahay u diyaariyaa subxaanahu wa tacaala jannada waxaa laga helaya waxaa weeye waa naciim laa bu'sa bacdah waa nicmo abaaru aysan ka dambaynin meesha nicmo walba iyo wax walba ood haysatid abaarnimaa ka dambaynaysa ama adaaba ka duqoobayo maalkii iyo hantidiiyo hortaada yaalla ayaad waxaad arkaysaa adigoon ka qadayn karin lacagtaadii akoonkay ka buuxdaa mana awoodid inaad ka qadayso gabow ama xanuunku qabtay awgiis gabow ku qabtay ama xanuunku qabtay awgiis hantidii meel walba way taallaa laakiin kama qadayn kartid kama quraacan kartid ama waaba ka dhimanaysa waa ka tegaysaa dadka kale isaga nafcinaya oo laga yaabo in badan aysan kaaga shukrin qaarka oo mahadsan yahay aysan ku dhihin xataa ayaa laga yaaba inay kaa dhaxlaan maalkaaga ay warigaan waxaa laga helayaa mar walbaba xayaat laa mowta bacdaha waa nolol oo mar walbaba aysan geeriyu ka dambeyn meel walba oo baasaboorka yani ugu caalamsan adduunka haddaad qadatid meel walba casrilah ku socdo baasaboorka ugu qaalisan ee wadan walba lagu tegi karo haddaad goosid ka carari kartid kama fakan kartid meel walba dunida ka degto waa ka joogaa wadan walba joogto kula jooga marka maxay tahay ama Soomaaliya joog ama wadanka ugu nabadgelyada badan adduunka joog mar walba hadday ku dili lahayd ilaahay ku ray awada way ku mudi lahayd meel walba tagto la mafar min alqadar cid ka carari kartaa qadarta ilaahay ma jirto bini aadamku tiknoolajiya walba uu sameeyay wax walba farsamo walba isku dayay laba shay oo la yahay inuu iska badbaadiyo dhimashada iyo cumrigiisa inuu hal daqiiqad ku darsado tiknoolajiyad kasto bini aadamku uu gaaray farsamo walba bini aadamku gaaray laba shayba waa la yahay qof wali adduunka wax walba oo sameeyo hanti hal daqiiqad ku darsan waayo cumrigiisa waa la yahay oo yiri hal daqiiqad ku darsaday milandeerkii waxa uu faa'iiday hal daqiiqad ku kordhiyay cumrigayga aan ku darsaday meeshii maxfuud ugu quraacay daqiiqada ugu kordhay markay teknolojiyada oo sameeyana waa la soo kale fiiri bashan ka baaday ka warigan ma jirto waxaa lagu nicinayaa khuluud ahlul janna waaritaan aysan ka baxayn waxaa lagu nicinayaa sixatun laa marada bacdaha caafimaad xanuun uusan ka dambaynin meel adduunka uu yaallo ma jirto meel adduunka weligeed aad caafimaad haysanaysid oo weligaa aadan xanuunsanaynin oo weligaa madaxu uusan ku xanuunaynin oo qandha aysan ku xanuunaynin jannada un baa laga helaa afartaa arrimood jannada un baa laga helaa jannadaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walbaba ilaahay uu u diyaariyaa dadka mu'miniinta ah jannada maxay tahay waa jannadii nabigeena sal allahu wasallam wabaaraka calayhi xadiiskii bukhaari uu warinayey nabigu sala allahu wasallam wabaaraka calayhi uu ku yidhi walow anna imra'atan min ahli اljanna iطalacat ilaa ahli اlard laadaa'at maa baynahuma walamala'at maa baynahuma riixa wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam gabdhaha jannada xuuru caynta ah oo ilaahay jannada uu ku abuuray hal gabaree ka mid a haddii ay soo daalacan lahayd ama adduunyada la keeni lahaa adduunyada dhan udug ayaa buuxin lahaa waa hal gabaree gabdhaha ahluljannaha ka mid ah haddii dunida la keeni lahaa dunida dhan way udgi lahayd dunida waxayna ka buuxin lahayd cirka iyo dhulka inta u dhaxaysa nuur iyo iftiin
ولنصبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها gabadha ahlul jannada shaashka madaxa u saaran ayaa adduunyada iyo waxa ku dhex jira ka khayr badan uu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam waa shaash gabadha ahlul jannada madaxeeda saaran xadiiska bukhaariga saxiixiisa ku wariyay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri shaash gabadha ahlul jannada madaxeeda saaran ayaa khayrun min ad-dunya wa ma fiha waxa adduunyo ku dhex jira ee dahab iyo dollar iyo saraha dhaadheer ah saarka shaashkaas madaxa u saaran gabadha ahlul jannaha ah ayaa ka khayr badan lanno shaashkaasi waa shaash lagu waarayo waa shaash aan laga dhimanaynin waa shaash aan laga gaboobaynin waa shaash wax isbedela uusan ku imanaynin nabiga sallallahu alayhi wasallam wa baraka calayhi wuxuu yidhi walaqaabu qawsi axadikum min aljanna khayrun min addunya wama fiiha hal qaanso intii la dhigo oo lagu cabiro hal qaanso intii la dhigo oo jannada ka mid ah haddii aad ka heshid adduunyada iyo waxa ka khayr ku jiro dhan haddii lagu siiyo qaansada qadarkeeda kaaga fiican oo jannada aad ka hesho nabigu sallallahu alayhi wasallam walu fiirso waa hal qaanso intii la dhigo oo jannada haddii aad ka heshid ayaa kaaga khayr badan mulkiga adduunyada dhan haddii lagu wareejiyo maxaad ka dheefi mulkiga adduunyada dhan haddii lagu siiyo waa ka gaboobi waa ka geeriya kugu imaanaysa waa ka xanuunsanaysaa waa ka tegaysaa isaga dhan laakiin meeshaas hal mitir oo kale aan dhammayn haddaad jannada ka hesho adduunyada dhan iyadaa ka khayr badan uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam jannadaasaa ilaahay maalin walba u diyaariyaa oo maalin walba ilaahay u qurxiyaa dadka saa'imiinta ah waa khisaasha iyo arrimaha lagu karaamaynayo dadka ahlul jannaha ah ilaahay xadiisu qudsi wuxuu ku yidhi oo bukhaari iyo kayrkii ay warinayaan acdadtu licibaadiy الصaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicad walaa khatara calىa qalbi bashar addoommadayda saalixiinta waxaan u diyaariyey jannada ugu diyaariyey wax il bini aadam hore aysan u arkin dheg bini aadamna horey aysan u maqlin qalb bini aadamna horey aan ugu soo dhicin oo naciim ah ayaan u diyaariyey allahuma jcalna minhum ilaahay aan ugu dar subxaanahu watacaala kuwa ilaahay u diyaariyey naciimkaas werigii horena aan loo arkin holena aan loo maqlin qalbi bini aadamna aan hore soo dhicin ilaahay ha nagu daro subxaanahu watacaala naciimkaas ee jannadaas ayaa ka mida waxyaalaha maalin walba ilaahay uu u kordhinayo oo ilaahay uu u qurxinayo dadka saa'imiinta ah ee ilaahay dartii u soomay khisaasha imaam axmed uu musnadkiisa ku warinayo oo ilaahay uu ku karaameeyey ummadda nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa ka mid ah watastakfiru lahum lmalaa'ika inta sooman oo ilaahay dartii u sooman malaa'igtaa u ducaynaysa u dembi dhaaf dalbaysa inta bisha ramadaan ay socoto oo dhan ramadaanku intuu socdo oo dhan malagaa kuu ducaynayo in ilaahay dembigaaga uu dhaafo laakiin waa soomkaagu hadduu yahay soom waardiyeysatay ood ilaashatay ood xafidatay waxyaalaha soomka nusqaaminaya ama soomka burinaya hadda ilaalisay liannahu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ku yidhi xadiiskii saxiixa ahaa man lam yadac qowla zuuri waalcamala bih falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofku hadduusan dembiga iska ilaalin intuu sooman yahay iyo hadallada beenta ah ilaahay wax dana kama lahan gaajadiisa iyo haraadkiisa ilaahay hadduusan ku danayn ma ka mid noqonaysaa dadka loo dembi dhaafo ilaahay hadduusan wax dana kaa lahayn ma ka mid noqonaysaa dadka liiska ahluljannaha lagu qorayo habeen walba lagu qorayo kama mid noqonaysid haddaad doonayso ilaahay soomkaaga inuu daneeyo haddaad doonayso ilaahay inuu ku aqbalo haddaad doonayso liiska ahluljannaha in ilaahay uu kugu qoro haddaad doonayso malaa'igtu inay dembi dhaaf ilaahay kaaga weydiiso waa inaad soomkaaga ilaashatid beenta anta iyo isku diraalaha iyo qabyaaladda iyo foolxumada wax walboo ilaahay carag gelinaya bulshada xuquuqdeediina dhibaya iska ilaali haddii ka soomkaagu wuxuu noqonaa soom aan wax macnaa ku fadhin naftaadii unbaad dhibaysaa oo gaajo aad ku dhibaysaa iyo haraad ee faa'iido weyn kama helaysid soomka aad sooman tahay haddaadan soomka sooman tahay aadan ku dhowrsan oo qof soomkiisa ku dhowrsanaya aadan ahayn oo dhegaha aadan ka soomin oo carab aadan ka soomin oo aadan ka soomin lugaha oo gacmaha aadan ka soomin xibnahaaga dhan waa inay ilaahay dartii waa inay u sooman yihiin marka aad doonayso inaad ka mid noqoto dadka fadaa'ilkan faraha badan ilaahay ugu deeqayo subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a waxyaalaha
ilaahay uu ugu deeqayo ummaddan ee nabigeena salى الlahu عalيه wasalam uu inoo sheegay lakhuluufu fami الsaa'im adyabu cinda allahi min riixi اlmisk nabigu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu tilmaamay qofka sooman afkiisa ilaahay waa uga caraf badan yahay miskiga iyo catarka midka ugu qaalisan limaada afkaas hadduu xataa urayo oo uu qarmoon yahay urkaasi iyo qarmoonkaasi waa juhdi iyo gaajo ka dhalatay ilaahay dartiisa loo gaajooday shaygu hadduu muuqaalkiisu xun yahay laakiin ilaahay daacadii uu ka dhashay ilaahay agtiisa waa ku qaali soo arki maysid xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku wariyey nabigu salى الlahu عalيه wasalam inuu yidhi laa yجtamicu gubaarun fii sabiili الlahi wa dukhaanu jahannam ma kulmayaan uu yidhi nabigu salى الlahu عalيه wasalam qiiqa jahannamo iyo lugahaagoo ilaahay dartii u wasakhoobay luguhu ilaahay dartii u wasakhoobay jamaacadii masjidkaa u soo socotaa boorkii iyo habaaskii yaa kugu bidaya jihaadkii aad u socotaa jihaadkii aad ku dhididaysaa ku wasaqoobaysaa xajkii aad u socotaa xajkii maaragtaa basaas iyo boor iyo wasakhdii ay kugu soo gaartay lugayntii faraha badneedoo la lugaynayay ilaahay dartii wasakh walboo kuu soo gaarta ilaahay agtiisa waa ka qaali ilaahay agtiisa waa ka qaali soo ma arkaysid xadiiskii dabaraani uu warinayey ee nabigu salى الlahu عalيه wasalam uu rabbigii ka wariyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigu salى الlahu عalيه wasalam uu nagu yidhi in allaha tacaala yubaahi malaa'ikatahu biahli اlmowqif ilaahay malaa'igtiisu ugu faanaa ahlulmowqifka ahlulmowqif waa dadka carafa isugu yimid oo muddo aan soo qubaysanin oo muddo aan soo shanlaysanin oo muddo aan saliid ismarin oo muddo aan catar iyo barafuun ismarin ilaa catarkii lama marsan karo xilligii xajka waa xaaraan saliiddii madaxa lama marin karo waa xaaraan intii xajkii uu socdo kuu xidhan yahay xajkii haddii aadan gaarin taxallulkii xilligii la xalaal noqon lahaa aadan gaarin qofku marka wuu basaasan yahay maalinta carafo la tegayo maalinta carafo la tegayo waa basaasan yahay catar isma marin karo barafuun isma marin karo saliid ma marin karo isagoo basaasan oo ilaahay dartii laakiin u basaasan ayuu halkaa istaagayaa bannaanka carafo ilaahay marka nabigu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu inoo sheegay inuu malaa'igtiisa ugu faanayo uu leeyahay unduruu ilaa cibaadi addoommadaydaa fiiriya jaa-uunii shucثan gubra waxay halkaa soo istaageen iyagoo basaasan ayay ii yimaadeen ilaahay dartiina u basaasan ushhidukum annii qad gafartu lahu waxaan markhaati idinkaga dhigay inaan dembigoodii dhaafay ilaahay dartii maadaama ay u wasakhaysan yihiin ilaahay dartii ay catarkii iyo barafuunkii iyo saliiddii ay jeclaayeen ay uga fogaadeen waxaan markhaati idinkaga dhigay inaan dembigoodii dhaafay oo dadka xujayda ah oo ilaahay dartii u basaasan wey marka basaasnaashuhu haddii uu yahay basaasnaasho iyo wasakh ka dhalatay ilaahay cibaadadiisa ilaahay waa kugu karaamaya waa kugu dallacsiiya dallacad gaar aad ka heli wasakhdaa ilaahay dartii kuu soo gaaraysa walidaalika nabiga salى الlahu عalيه wasalam hadda ka hor isagoo cibaado u socda ayaa dhagax ayaa farihiisa far ka mid ah ayaa ka dilay nabiga salى الlahu عalيه wasalam fartiyaa marka dhiig ka yimid fartii nabiga salى الlahu عalيه wasalam nabigu salى الlahu عalيه wasalam fartiisii ayuu la hadlay markaasuu wuxuu ku yidhi hal anti ilaa isbicun damiiti wamaa laqiiti wa fii sabiili اllaahi maa laqiiti wuxuu yidhi waxaa tahay far ilaahay dartii u dhiigowday waxa aad la kulantay oo dhanna ilaahay dartii ayaad kula kulantay qof sharaf lahaadba tahay fartii uu la hadlay nabigu salى الlahu عalيه wasalam sharafaad leedahay ilaahay dartii ayaa maaragtaa dhiiggani kaaga yimid adigoo daaco u socda oo cibaado u socda ayaa dhiiggani kaa yimid marka adaaba nasiib lahu yidhi nabigu salى الlahu عalيه wasalam marka wax walba oo ilaahay dartii kuu soo gaara waa qaali wax walba adigoo salaadda u soo socda qodaxdii ku mudaysa adigoo salaadda u soo socda dhagaxa aadan u jeedin oo maaragtaa aad ku kufaysid ku dhacaysid ilaahay waa kugu dallacsiinaya intaas dallacaad iyo garaaddo gooni ah garaaddo gooniyahaad ilaahay agtiisa ayaad ku sii yeelanay waa dhibkaa ilaahay dartii kuu soo gaaraya subxaanahu wa tacaala lidaalika marka walaalayaal waxaa inoo bilaabanaya hadda ka bacdi jawhartii ramadaanka iyo taajkii ramadaanka taaju ramadaan duratu ramadaan jawharta ramadaan waa tobanka ugu dambaysa ramadaan tobanka ugu dambaysa ramadaan waa dhuuxii ramadaanka waa meeshii ugu qaalisanayd waa kuruskii ramadaanka waa meeshii ramadaan ugu qaalisanayd nebiga salى الlahu عalيه wasalam kaana yجtahidu fi اlcashri الأwaakhiri min ramadaan maa laa yجtahidu fii gayrih tobanka ugu dambaysee ramadaan
wuxuu dadaal bixin jiray labaatankii hore dadaal uusan bixin ayuu bixi jiray tobanka dambe nabigu salى الlahu عalيه wasalam isagoo ramadaanka o dhan wada dadaalaya haddana dadaalkiisa waa sii siyaadin jiray nabigu salى الlahu عalيه wasalam tobanka ugu dambeeya leanna waa nuxurkii iyo dhuuxii ramadaanba tobanka ugu dambeeya ayaa ilaahay geliyey subxaanahu wa tacaala lidaalika waxay culimmadu u badan yihiin leylaة اlqadri inay ku dhex jirto tobanka ugu dambeeya ramadaan leanna axaadiis saxiix ah ayaa nabiga salى الlahu عalيه wasalam uu ku tilmaamay oo nabigu salى الlahu عalيه wasalam uu yidhi taxaraw leylaة اlqadri fi اlcashri اlawaakhiri min ramadaan leylaة اlqadri ka fiiriya oo ugu dadaala tobanka ugu dambeeya ramadaan tobanka ugu dambeeya ramadaan si gaara ka fiiriya oo ugu dadaala leylaة اlqadri uu yihi nabigu salى الlahu عalيه wasalam wa kaana yactakif في الcashر الأwaakhir min ramadaan nabiga salى الlahu عalيه wasalam tobanka ramadaanka ugu dambeeya gurigiisa ma uusan aadi jirin masjidkuu ku ictikaafi jiray masjidka ayuu nabigu salى الlahu عalيه wasalam gurigiisa ahaan jiray tobanka ugu dambeeya ee ramadaan yunaaji rabbah wayadcuu rabbah wayatadarc ilىa rabbihi subxaanaه wa tacaala isagoo rabbigii la faqaya oo rabbigii baryaya oo rabbigii su-aal weydiisanaya oo rabbigii subxaanaه wa tacaala ummaddiisana u baryaya tobankaa ugu dambeeya nabigu salى الlahu عalيه wasalam hoygiisa iyo gurigiisu masjidkuu ahaan jiray rasuulka salى الlahu عalيه wasalam waxaa umunaa caaisha laga wariyey inay tiri umunaa caaisha kaana salى الlahu وsلم وbaaraka عalayh إida dakhala alcashru الأwaakhir min ramadaan shadda mi'zarah وaأxya الleyla kulah وأyqada ahlah nabiga salى الlahu عalيه wasalam tobanka ugu dambeeya ramadaan hadduu gaaro dhexduu xihan jiray tiri umunaa caaisha yacni waa xanjeero jiray dadaal dhexduu u xihan jiray inuu cibaadaysto dhexda u xihan jiray wa axya leyla kulah tobanka habeenoo ramadaan oo dhanna waa noolayn jiray waa soo jeedi jiray nabiga salى الlahu عalيه wasalam tobanka ramadaan soo jeedka nabigaa badnaa salى الlahu عalيhi wasalam ilaahayna wuu jecel yahay in ilaahay dartii hurdadaadii macaanayd aad uga tagto raaxada nafta way jeceshaa qof aan raaxo jeclayn ma jirto qof aan hurdo jeclayna ma jirto laakiin qof walba dadka ilaahay u hiloobay oo ilaahay jecel raaxadoodii maxay uga tegayaan ilaahay dartii ridaha ilaahay inay gaaraan oo ilaahay mar uun il naxariisle uu ku fiiriyo mar ilaahay inuu subxaanahu wa tacaala uu aqbalo ayay ilaahay albaabkiisa taagan yihiin taagnaashada albaabka ilaahay ay taagan yihiin ayay hurdadoodii ay uga tageen tatajaafaa junuubuhum can اlmadaajic yadcuuna rabbahum khawfa waطamaca ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إلهي سبحانه وتعالى wuxuu leeyahay جل جلاaله dadka أهلulkhayrka astaanta iyo calaamada lagu yaqaano joodariyaasha firaashyaalka sariiraha meelaha naftu ay jecelyahoo dhan way ka fogaadaan habeenkii yadcuuna rabbahum khawفa وطamca ayagoo rabbigood u caabudaya cabsi rabbi ay ka qabaan iyo damac ay damcayaan ilaahay naxariistiisii iyo jannadiisii ilaahay jala jalaaluhu wuxuu yidhi falaa taclamu nafsu maa ukfiya lahu min qurati acyun naf ogi ma jirto addoommada hurdadooda ilaahay dartii uga tegey waxa loo qariyey oo indhahoodu ay ku raaxaysan doonaan waxa indhahoodu ay ku qabowsan doonaan oo aan u kaydiyo kaydka aan uga dhigay cid aan ogeysiiyey ma jirto kaydkaas marka kaydkaa haddaad doonayso waa kaydkaa xilligii aad shaqaysan lahayd ayaa la joogaa tobanka ugu dambeeya ramadaan iyaysan naga fakanin qofkii labaatankii hore ramadaan labaatanka ramadaan qofka dadaal bixiyey oo ku dadaalay dadaalkiisii ha sii kordhiyo labaatanka ramadaan qofkii hurdadu ay ku badnayd maalayacnigu uu ku badnaana tobanka ramadaan caano daadanaya waxaa la yidhi gadaashiisaa la qabtaa xoogaa waa la hambaystaahe caanaha daadanaya ha la qabsado oo sii daadana bisha ramadaan oo sii dhammaanaysa ee gebagabo sii maraysa tobanka ugu dambeeya ku dheg boos dambeedka ku qabso intii hore haddii xoogaa gelabgelab ay kugu soo mooday intii kale haddii xoogaa maalayacni iyo nafta iyo shaydaanku ay kaa adkaadeen intan dambe nafta la dagaalan iyo shaydaanka yac ka dhaho tobankan dambe yac ka dhaho naftu waa dhibaato badan tahay ma rabto waxaan la sheegayo o dhan inay aaddo waxaan khayr oo dhan oo la sheegayo o dhan ma rabto markaad tidhaahid xaya calىa qiyaami leyl xaya ilىa tilaawati اlqur'aani اlkariim kaalay naf yahay aanu aadno qiyaamu leylkii la ammaanay qur-aanka akhrintiisa la ammaanay masaajidka ku nagaashadiisa la ammaanay ayaduna waxay ku leedahay xaya ilى الnowm
nakana hurdada aanu aadnay xagga markaad ugu yeerto ayaduna xaggay kuugu yeeri qofkii marka dharbaaxa isaga dhifta naftiisa qofkaas uun baa liibaanaya oo yac yidhaaha nafta oo nafta la hadla oo yidhaha xaggee ii waddaa xaggee ii waddaa axadu salafi saalix ayaa habeenkii oo dhan taagnaa oo qiyaamuleyl u taagnaa marka hurdadii uu iska baabi'inayo salafu saalix axad ka mida markaasuu guriga ku wareegayo si aysan hurda u qabanin naftu la dagaalamayo markaasaa ahalkiisii waxay ku yidhaaheen arix nafsaka yaa sheekh sheekhu nafta u raaxee markaasuu sheekhu wuxuu yidhi iraaxatahaa uriid waxa aan la wareegsanayaba waa raaxadeeda waxaan caawo dhan la soo jeedo raaxadeedaan raadinayaa ayadaa dabaalon raaxada oqon nafta oo waxaan hurdada iskaga baabi'inayo oon u wareegayo hurdada aan ula dagaalamayo maxay tahay raaxadeedaan raadinayo berri inay qabriga ku raaxaysato berri jannatulfirdows inay ku raaxaysato waxaan iyadu ay raaxada u taqaano daqiiqadaha dhammaanayaan ka celinahay si berri wax badan ay u raaxaysato marka adigu waxaad ileedihiin oo yidhi nafta ha dhibin aniguna raaxadeedaan ba raadinahayaa nafta u raaxee ayaad leedahay raaxadeedaan ba ku jiraa waxaan raadinaya waa raaxadeed marka waa sidaas oo waxa weeye naftu markay kugu tiraaho war maxaad isku dhibi dadku waa hurdayaano war dadku waa hurdayaano ummaddii maaragtaa iska raaxaysanayaane maxaa ku soo jeediyey raaxadaadaan doonayaa ku dheh waxaan raadinayo waa raaxadaada ku dheh marka qof walba waxa weeye ha ka faa'iidaysato dhexdana ha u xirato inta gebagabada ah ee ramadaan ka dhiman sidii ay maaragtaahay uga mid noqon lahayd dadka ilaahay uu aqbalo nas'alu اllaha tacaala an yajcalana min cibaadihi الصaalixiin almustabshiriina alaaminiin almaqbuuliin almuflixiina الsucadaa الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعل من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على